mas-uuliyiinta ururka samafalka Soomaaliyeed ee Alfa Trust ayaa deeq lacag iyo bacaha roobka gaarsiiyay qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha ururka Alfa Trust Daahir Cali Kulmiye oo ay weheliyaan Sheekh Abubakar iyo Sheekh Cumar oo la hadlay telefishinka Dalsan ayaa sheegay inay garab taagan yihiin walaalaha dhibaataysan. aniga ku hadlay ururka Alfa Trust iyo dhamaan dad walba sadaqada jecel dadkiina muxsiniinta waxaan jeclaan lahaa inaad duceysaan qalbiga ma sha Allah waxaan kala rabaa inuu mahad celiyo Sheekh Abubakar iyo Cumar ugu talagalay bishan shaqeeysan dadkan walaalahooda ay markan u qadmeeyaan lama soo koobi karo anaga dareemi karno oo dadka hor tagnay xanuunka ama murugada dadka haysata ilaahay baa naga wada qaari kara anaga murugeysanahay marka hooyadan waa soo booqana maanta hooyo oo kaas ilaahay ku cafido noo soo duceeyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ururka samafalka Alfa Trust oo mar walba iyo goor walba iyo xilli walba u taagan in ay dadka ay caawiyaan oo safarkan oo dhan asla soconay oo goobaha ay joogaan dadka u baahan in la caawiyo nageenayay mar walba iyagana aad iyo baan ugu mahadcelinayaa amaanada sida wanaagsan ay u gudanayaan iyo sida wanaagsan ramadaanka toddobaad sideedaad hadda la jooga oo isku xiga sida mar walba ay u caawinayaan dadka ku nool dhulkii hooyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin xifdiyo qof walba taageeran ururkan waa u mahadcelinayaa jazaakumullahu khayran. telefishinka Dalsan ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadkii la gaarsiiyay dhaqaalaha iyo bacaha roobka waxaana ay ka mahad celiyeen deeqda la soo gaarsiiyay. soo gaarsido ku mahadsantiin roobku dani miyiginada dhacayaan danyarta dad soo xusuusateen Allah idinka tisaay mariyo inta ay in ka badan baa Allah idinka tisaay mariyo waa bir rabadaan weeyaan waa tobankii u dambeeyay ee lagu kala roganayay weeyaan haddii aad u keento soo xusuusateen Allah idinka tisaay mariyo idinka iyo inta ka soo godaba laban laab Allah ha u dhigo amiin kaydka Ilaahay waan idinka gudoomay هذا كسر سعرنا مساك حسنات كالله وقدره تبارك كلا الله وقدره ها تذكر دي صح استوى آدم ويش الله مر الحمد لله رب العالمين هو والدين ما هدنا قلنا إلهي وانا ما هدنا قلنا من أدعي نسيل حريصة نسيل الحمد لله رب العالمين يسكوك بما ما كلا قاضي أيام ما هدنا إسكالي والله هنا جدا محسنين تا دولا ملاشينا قريق أيقو إذا مكان أي قريق دبكة قبصدي bushkan u jeedaan ayaa guri u ahay way ka murugootay qafdan guriga u degan oo ku gubtay waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay ee saameynta ay leedahay alxamdulillah carruurteeda Ilaahay ugu badbaadiyay qofku waxa loo baahan yahay waxay tahay nicmadooyinka Ilaahay si inuu ugu mahad celiyo dadka kalena inuu caawiyo oo wax u qabto ma sha Allah taala maanta waa soo booqanay alxamdulillah waan gadoonsiinay ururka Alfa Trust aad iyo aad ugu mahadsan yihiin inay noo tilmaamaan mar walba dadka dhibaataysan halkay joogan aad iyo aad ugu mahadsan yihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdiyo walaalina Ilaahay idinka ajirsiiyay Ilaahay ajir weyn idinka siiyo maadaama oo baahan ay timaadaan oo gargaarteen Ilaahay idinka ajirsiiyay amiin ma ahan markii ugu horeysay ee ururka Alfa Trust uu barnaamijyo samafal ah ka sameeyay deegaanada Somaliland waxa ayna mas'uuliyiintu ay sheegeen inay tagi doonaan deegaano kale oo ka tirsan Somaliland. Maxamed Cabdi Xasan Idil Raadiyaha iyo telefishinka Dalsan.